waxaa jirta aragti sugaysa in nolosha ay ka soo abuurmatay markii ugu horreysay badweynta, sidoo kalena welina kama aysan suulin badweynta inay tahay mid ay ku nool yihiin noolayaasha ugu waaweyn dhulka. Kanina waa mawduuca muuqaalkeena maanta, haddaba ku soo dhowaada. Megalodon. Markii maskaxdeena ay ku soo dhacaan waxyaalo quseeya bahalada ama xayawaanada ugu waaweyn ee badaha, waxa ugu horeeya ee maskaxdeena ku soo boodaya waa sawirka xayawaankan aadka u weyn ee Megalodon. Bahalkan dabar go'ay muddo in ka badan 2,600,000 oo sano ka hor. Wuxuu ahaa mid cuna nibiriyada, libaax badeedka iyo hoombarada. Helidda qaar ka mid ah ilkaha bahalkan oo ku jira god ayaana ka caawiyey culimmada inay aqoonsadaan inta uu ahaa culayskiisa iyo xajmigiisa. Wuxuuna noqday dhirirkiisa mid u dhexeeya 60 ilaa 80 fiit, taasi oo ka dhigan 3 nibiri oo ah noocyada nibiriyada cadcad. Sidoo kalena waxaan ognahay in dhirirka ugu dheer ee nibiriga cad uu gaarayo 20 fiit. Waana kuu suurtagal inaad ka iibsatid ilkaha bahalkan aadka u weyn internetka qiimo u dhexeeya $200 ilaa $2,000. Dhammaantoodna waxay ku xiran tahay sida uu yahay xajmigooda. Kraken. Bahalkan oo ay aaminsanaayeen dad badan inuu ahaa khiyaali ilaa uu ka soo muuqday markii ugu horreysay muuqaal sanadii 2012 laga duubay meel u dhow jasiirad ku taala dalka Japan oo lagu magacaabo Shishijima. Waxayna tiri badmaaxadii soo heshay in labka xayawaankan dhirirkiisa uu gaaro 33 fiit, halka tan dhidagga uu gaaraya dhirirkeeda 43 fiit. Waxaana jirta aragtiyo kale oo sheegaysa suurtagalnimada inuu dhirirkooda uu gaaro 66 fiit, ayadoona ay kala jirto kala duwanaansho xajmiga iyo culayska bahalkan. Nibiriga buluugga. Nibiriga buluugga waa kan ugu weyn makhluuqaadka dhanka xajmiga. Ilaa iyo goortii uu bilaabmay abuuritaanka, dhirirkiisa wuxuu gaaraa 105 fiit. Waxaana suurtagal inoo ah inaan suuraysano xajmiga bahalkan aadka u weyn haddii aan ogaano in wadnihiisa uu u dhigmo gaariga Volkswagen. Xayawaankan wuxuu ahaa mid ku sigtay inuu dabar go'o sababo la xiriira ugaarsiga xad-dhaafka ah ee lagu sameeyey, ilaa laga soo saaray sharci lagu joojinayo ugaarsigiis sanadii 1967. Maalin walbana wuxuu cunaa nibirigan aadka u weyn ku dhowaad 14 tan oo kalluumada lagu magacaabo krill, waana wax u dhigma culayska xayawaanka jeerta. Leviathan. Bahalkan aadka u weyn wuxuu ahaa mid cuna nibiriyada kale ee la midka ah, waxaana uu ku socnaa lahaansho ilka waaweyn oo uu ku ugaarsado, kuwaas oo uu dhirirka halkii xabbo oo ka mid ah uu gaarayo ku dhowaad 1.5 fiit, halka balacooduna uu ahaa 4 inji. Wuxuuna dhirirka bahalkan aadka u weyn uu gaaraa 44 fiit ilaa iyo 57 fiit, waana wax u dhigma dhirirka xayawaanka geriga oo 3 jeer ah, ayadoona laga soo helay god uu ku jira haraadiga bahalkan sanadii 2008. Anacondaha cagaarka. Wuxuu ku nool yahay noocyadan waaweyn ee masaska ah, gunta biyaha hoostooda iyo meelaha biyo fadhiisiga ee Ameerikada Koonfureed. Lahaanshaha midabka cagaarka ayaana ka caawiya maskan inuu ku hoos dhunto deegaan dhireedka uu ku nool yahay. Wuxuuna ku dabaashaa biyaha asigoo ilaalinaya indhihiisa iyo inta kale ee ogadiisa. Halkaas ayuuna ku sugtaa wixii uu dilan lahaa si uu u garaaco kadibna uu u laqo si dhammaystiran. Dhirirka maskan dilaaga ah ee aadka u weyn ayaana gaara 30 fiit, halka culayskiisa uu gaaro 250 kilogram. Waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah xayawaanada ay adag tahay in la ugaarsado. Xitaa heer beerta xayawaanka ee Bronx Zoo iyo madaxweynihii Roosevelt ay duldhigeen abaalgud gaaraya $50,000 qofkii ay u suurtagasho ugaarsiga helidda mid ka mid ah masaskan. Sidaas oo jirtana welina cidna ma aysan awoodin ugaarsigiis. Loch Ness. Bahalkan aadka u weyn wuxuu ku jiraa bahda xamaaratada ee badda, kuwaas oo ay taariikhdoodu jirsatay 230 milyan oo sano. Wuxuuna u egyahay xayawaankii Plesiosaurus ee dabar go'ay. Dhirirka bahalkan xayawaanka ah wuxuu gaaraa ku dhowaad 49 fiit, waana mid ku nool harada Loch Ness ee ku taala Scotland. Mukele Mbembe. Waxaa la rumaysan yahay in xayawaankan aadka u weyn uu ku nool yahay webiga Congo ee bartamaha qaaradda Afrika. Madaxiisa ayaana ka kooban gees uu u isticmaalo ugaarsiga maroodiyaasha. Waxaana lagu sheegay xayawaankan aadka u weyn markii ugu horreysay bug lagu magacaabo Beast and Man, kaasi oo uu qoray ugaarsade u dhashay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Karl Hagenbeck. Ichthyosaurus. Xayawaankan aadka u weyn ee ka tirsan bahda xamaaratada badda
ayaa wuxuu dabar go'ay muddo laga joogo 90 milyan oo sano ka hor, waxaana uu ahaa nooc xayawaan oo shabaha hoombarada iyo qaar ka mid ah kalluunada, wuxuuna lahaa indho waaweyn, jir sare oo dufan badan, taasi oo ka caawinaysa inuu la qabsado deegaankiisa. Xayawaankan midkiisa dhexdhexaadka xajmigiisa wuxuu ahaa mid gaara 6 ilaa 13 fiid, waxaana sanadii 1898 la soo helay haraadiga xayawaankan aadka u weyn oo ku jira godad ku yaala dalka Ingiriiska. Sidaas oo kale ayaa mar kale haraadiga noolahan Ichthyosaurus oo dhammaystiran habdhisankiisa laga soo helay isla dalka Ingiriiska bishii January ee sanadkan aan ku jirnay ee 2022. Dhererkiisana wuxuu gaaraa xayawaankan 85 fiid. Kalluunka oarfish ee aadka u weyn. Noocyadan kalluunada oo kale waxaa lagu tiriyaa kalluunada ugu waaweyn ee jira, waxaana lagu garanayaa kalluunkan lahaanshaha baal dhabarka dambe oo la eg jooga jirkiisa, mana lahan wax qashaar ah, wuxuuna ku nool yahay ku dhowaad fogaan gun gaaraysa 300 oo fiid oo badda hoosteeda ah. Dhererkiisa ayaana gaara 58 fiid, halka culeyskiisa uu yahay 272 kilogram, asigoona quuta xayawaanada yaryar ee badda. Mararka qaar waa suurtagal in laga helo kalluunkan dusha sare ee biyaha ama meelaha u dhow xeebaha badda, ayadoona taasi ay ku qasabto waqtiyada ay jiraan dabeelo ama duufaano aad u daran. Qandiilka libaaxa badda. Noocan qandiilka ah waxaa loo yaqaanaa qandiilka libaaxa badda. Sababta loogu bixiyay ayaana ah lahaanshaha cijiyaha qaabka libaaxa, waxaana lagu tiriyaa noocyadan qandiilada kuwa ugu waaweyn ee la aqoonsan yahay ilaa iyo hadda, waana mid ay u suurtagal tahay inuu dhererka kaga dheereeyo nibiriga buluugga, wuxuuna dhererkiisa uu yahay mid gaara 120 fiid, halka qaybta madaxa ee ugu weyn jirkiisa uu yahay 7 fiid, wuxuuna ka kooban yahay baalkan aadka u weyn sun neerfa ah oo u sababi karta xanuun iyo gogo jireed bini'aadamka. Laakiin ha ka welwelin, qaniiniyadiisa ma ahan mid dhimasho leh. Ugu dambeyntiina, muuqaalkeena halkaas ayuu noogu eg yahay. Haddii aad ka heshaan muuqaalka taabo like, hana hilmaamin inaad kanaalka rukumato si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena soo socda. La kulan dambe oo xiiso leh.